dambe galley in la abuuro way adag tahay, laakiin cayayaanka ayaa sii adkeeya. Cayayaanku waxay sababayaan inaad ku khasaarto dalaggaadii, sidaa darteedna ay familkaadii maaragtay ay nafaqa la'aan ku dhacdo ama lacagtii kaa gashayba aad ku cayayaanka ugu horeeya oo sababa waxaan oo dhan oo dhibaatada u keensada galleyda waxaa la dhahaa stem borer ama waa bahal baalaley ah oo maaragtay dhasho ugxaamo iyo ukun dhasho. meeshan waxaa kusoo qaadan doonaa system la dhaho ama waxa la dhaho push pull system oo ah habka looga hortago cayayaankan stalk borer la dhaho oo ka haleynaya galleyda. qaabkan waxa loo sameeyaa waa qaabka loo yaqaano IPM program oo ah habka looga hortago cayayaanada inay beertaada ka dhimaan. aan ka hadan la habku maaragtay baalaleyda ama cayayaankan u haleeya galleyda. cayayaankan dhadiga wuxuu sameynayaa marka koowaad wuxuu ku dhalayaa ugxaamo caleenta galleyda salkeeda hoose. haddii aad ku aragto ugxaantan galleydaada waxaad ogaataa inuu cayayaankan beertaada soo galay 4 ilaa 8 berina waxaa waaye wuxuu noqonayaa dixrigan ama diir sida la dhahabo kalaray kala duwan tahay kalar yar cadaan iyo yellow isku jiray leedahay ama ciid u eg. madaxeedana waa casaan waxa lagu gartaa 4 dhibic weyna geesaha ku leedahay. diirta markay soo dhameysato caleenta ay soo liqdo waxay soo galaysaa geedka laftiisa kadibna waxay ka cunaysaa dhuuxa dhan bay geedka 2 ilaa 4 isbuuc markay ka cunto geedka xididka diirti waxay isku bedelaysaa pupa ama baalaley bay isku bedelaysaa. baalaleydan ama balanbaalistan habeenkii ayay active tahay oo si fiican u shaqaysataa, maalintina way nasanaysaa, habeenkii ayay dhalaysaa waxaas oo ukuma ah. galleydaada si aad uga hortagto cayayaankan waxaa la isticmaalayaa systemka la dhahayo ama technique la dhahayo push pull system. systemkan wax sun ah ama daawo oo buufin oo sun ah lama isticmaalayo. wuxuuna badbaadinayaa cayayaanka xoonka la dhahayo oo dilo ugxaanta dilayo bahasha cayayaankan stem borer la dhahayo balanbaalistan oo dhibaatada u geysata galleydaada. systemkan waxaa lagu abuuraa galleydaada geedo ama cawsas cayrinayo cayayaankan stalk borer sidoo kalena hadhow u noqonaya nafaqo xoolahaada. qaabkan saa u dhaqan geliso galleydaada waxaad u abuurtaa 2 feet isku jirsii ama 75 centimeter leynankooda isku jirsii. kadib waxaa dhexdooda ku abuurtaa desmodium ama muxuu ahaa cawska la dhahayo desmodium waa aqaqar wax badan baa ka hadlay. aqaqartaas waxay soo saartaa chemical cayrinayo bahashan baalaleyda iyo balanbaalista way ka cararayaan oo waxay u cararayaan geesaha markay u cararaan geesaha waxaad ku abuurtaa cawska la dhahayo super napier ama napier grass ama bracharia elephant grassna waa lahaa. wuxuu sameynaya markay geesaha u cararto waxay sameynayaan marka ukume ay ku dhali lahaayeen galleydaada waxay ku dhalayaan cawsaskaas, markaasna waxaa yaraanaysa dhibaatada ay maaragtay galleydaada u geysan lahayd. ugxaanti markay diir isku bedesho diirta way dhimanaysaa waqti yar kadib markay caleenta dhameysato maadaama ay haysan meel kale ay kusii korto. halkaas bayna ku dhamaanaysaa waqtigoodii oo mar dambe. By planting Desmodium between your maize rows, you will push the stem borer away from your crop. By planting elephant grass or brachiaria around your field, you will pull the moth away from your maize and kill any potential offspring. The Desmodium and elephant grass can also be harvested to feed your livestock or to sell. In addition, the Desmodium helps control the strigo weed, also known as witchweed. Finally, climate-smart new varieties of Desmodium and elephant grass are available that require less water and therefore save more water for the maize. In summary, this is a cheap and easy solution to control stem borers without having to buy any pesticides. Try push-pull on your maize crop if stem borers are a problem in your area. You can save your crop from infestations and produce greater yields during the growing season. This means more food and money for you and your family.